caawa insha allahu tacaala waxaynu isdul taagi doonaa dariiqa labaad oo ah in qofka bini aadmiga ahi uu isagu xuduuddii ka tallaabo qofka bini aadmiga inuu xuduuddii ilaahay u dhigay uu ka tallaabo biariiqatin aw biukhraa waxaynu isla soo waafaqnay oo culimmada ahlulcilmigiihi ay dhammaantood isla qaateen in xidhiidh gogoleed dhici karo laakiin xukumkiisa way isku khilaafeen bacduhum waxayna yidhaahdeen sinaba xalaal uma aha in xidhiidh gogoleed uu dhex maro jinka iyo insiga bacdina waxay yidhaahdeen waa makruuh bacdina waxay yidhaahdeen waa mubaax masalada ay sidaa u dhigayaan waxa weeyaan marka bini aadmigu ay xuduuddooda ka tallaabaan laakiin qofka haddii lasoo daandansado waa mujbarun waa qof la qasbayo oo aan awooddiisa iyo ikhtiyaarkiisa waxaan ku samaynayn hadday awooddiisa ka baxsan tahayna ilaahay tabaaraka wa tacaala u qabsan maayo wama stukriha calayhim wixii lagu istikraaho oo lagu qasbo ummatu muxamed looma qabsado waana khawaa'ista ay ummatu muxamed leedahay ruuxa bini aadmiga ee muslimkaa wixii lagu qasbo inaan ilaahay kula xisaabtamayn inay culimmada dhammaantood ay aaminsan yihiin ama ay ku tageen in xidhiidh gogoleed uu dhex mari karo waxaynu ka fahmaynaa axkaamta ay ka qaateen oo ay leeyihiin waa xaaraan waa karaahiyo waa mubaax shay aan macquul ahayn oon ixtimaali karaynin xukun lagama dejiyo maalan culimmada islaamku isma weydiiyaan qofka ma u bannaanta inuu malaa'ig noqdo ma xaaraanba ma xalaalba ma jaa'isba kama hadlaan sababtaa waaba dee waxaan suurtagal ahayn marka inay masaladani agtooda suurtagal ka tahay waxaan ka fahmaynaa axkaamta shareecaday ku dureeriyeen haddaba kii isaga la qasbay asbaabta ay kula xidhiidhaan waan ka soo hadalnay midkan qofka bini aadmigii isagu uu dilaacinayo xaajiskii iyo dayrkii u dhaxeeyey haqalaynka saddex siyood midunbuu ku yimaadaa saddex siyood midunbuu ku yimaadaa midi waa mid aa wada maqasheen oo taqaaniin waa midka ay yidhaahdaan saarka ama mingiska ama booranaha oo gobol walbaaba magaca u yaqaaniin saarku waa nooc lagula xidhiidho shayaadiintaasu waxay qofka bini aadmiga kala soo xidhiidhaan xagga tafiirta ama qof bini aadmiya oo intuu jinku galay loo geeyey qof aan shareecada ilaahay wax ku dawaynaynin dabadeedna laga ballamiyo oo la odhanayo hadday gabarh tahay inta wax loo qalo calafkeeda la suga markaa la guursado ayay ku imanayaan inta kalena way ku qarsoonaanayaan waxay meesha ku joogaanna waxa weeye laaluushkaa hore ee la siiyey ee baatilka ah iyo xoolaha loo qalay markaa calafkeedu yimaado ayay dabadeedna soo gelayaan ama ay bilaabayaan inay dhibaatooyin ay muujiyaan ayagoo raba in wax loo qalqalo oo dhiig la marmariyo oo xaaraan lagu dhaxo waxaad maqlaysaa ayayday baa lahaan jirtay deedna ayayday baa igu soo wareejisay waxaa la samaynayaa marka laga ballaminayo ballanka loo qabanayo xoolaa la qalqalayaa waxaana loo qalayaa shayaadiinta dabadeedna waxaa lagu casuumayaa dad kale haween kalaa loo yeedhayaa oo aan xanuunkaba qabin neefkii la qalay ama labadii neefee la qalay ee loo qalay saarkiiyo jimanka ayaa hilibkoodii la siinayaa markay hilibkaa cunaan awooddoodii difaaca ayaa meesha ka baxaysa halkii malaa'igtu ay joogtayna shayaadiin baa soo gelaysa sababta oo ah hilib
aan ilaahay xalaalayn bay cuneen wamaa uhilla ligayri illaahi bihi deedna aqalkii baa la soo gelayaa gabadhii calaqadda la odhanayay ee iyadu barmoostay ee ay iyadu adeegsanayeen ayaa meesha imanaysa calaqadda waxa weeye waa ruux intaasoo jeer saarka laga tumay oy markii dambe ka dhigteen darmaan waxay u yaqaaneen tan ay adeegsadaan ee afgaranaysa darmaan bay yidhaahdaan darmaantaasi marka dadku ay isu yimaadaan ee hilbaha xaaraanta alla cuno ayaa waxay dalbanaysaa ciidankii jinka hadallada inta badan aa maqasheen ay ku dalbadaan waxaa ka mid ah saarow awoowow soo deg timashaashlihiiyow soo deg iyo hadallo la mid ah oo qaarkood marka dambe shirkiyaad ay gelayaan hadhowna waxbaa la garaacayaa kelimaad shirkiya baa lagu dhawaaqayaa wixii meesha joogay ee hilibkaa xaaraanta cunay badankoodu way daadanayaan tii iyada si gaara looga tumayay way ka degayaan kuwanna waxaa la leeyahay jimanbaa qabi jirteen oo idinku qarsoonaa oo idinkaa daatay markaa sanadka soo socda ayaa idinkana laydinka tumayaa halkaasay kala xidhiidhayaan mar afraadka waxay noqonaysaa gabadhaa mar afraadka laga tumo inay noqoto ooriyaadka jinka waxaa toos ula xidhiidhi doona shayaadiinta aqalkeeda iyo furaashka ninkeeda kuma raaxaysan karayso haddii habeen ay noqoto uu sawjkeedu yimaadana xanuun ka bixi mayso inta ay kelidee tahayna waa mabsuud habeenkii markay seexatana waa loo imanayaa sidaasaa markaa saarku uu ku faafaa oo marba nimaan jinniye qabin baa lagu casuuma meesha saarka lagu tumayo dabadeedna sidaasay ku daata haddii carruurta yaryar la geeyo meesha saarka lagu tumayo iyaguna waxay noqdaan dad abhaliyiina oo bilaa caqliya oo aan maskaxdoodu korin meelaha saarka lagu tumayo marka carruurta aan qaangaadhka ahayn la geeyo maskaxdoodaa dhaawacanta garashadooduna way hoos bay u dhacdaa aqoontii waxbarashadana way ka habsaamaan marka ama saar u bixi ama mingisba dheh ama booranaba dhahoo dariiqaa wixii ay kula xidhiidhaan shayaadiintu way guursadaan noloshoodana way marka dambe iyagaa dila oo marba waxbaa laga qaadaa waxbaa yacni ay u ballamiyaan ama dhar cascas meel ha loo dhigo ama furcadda meel ha loo dhigo ama waxyaalo la shito jaawi iyo wax la mida meel ha loogu shido aduu waxa weeyaanu kharash joogto ah fii kulli sana ama fii kulli 6 shuhuur 6 biloodba mar ayaa waxaa la rabaa lacag qadar ah oo reerka maxaanku rahaa ducafadii aanay ka dandhanayn in la isticmaalo oo xoola lagu qalqalo marka ay u gaadho waxaa la samaynayaa meelaha qaarkood jarikaan dhan oo maxaanku rahaa subag ah oo sixin ah ayaa la soo dhalaalinayaa haweenka saarka imanayana dhammaantood diricyo isku wada midaba baa loo gelinayaa deedna waa la fadhiisinayaa subagkii oo la dhalaaliyey oo aan kululayn baa dhammaan madaxa looga wada shubayaa dhammaantood iyagoo subagii da'aya ayaa dabadeedna hawshii la bilaabayaa qaarkood raashinkaa lagu fadhiisiyaa raashin bisil baa la odhanayaa ku fadhiista waxaasoo dhanna waxa weeyaan waa israaf weeye waa ibdaar ina almubadiriina kaanuu ikhwaana ashayaaiini wa kaana ashaytaanu lirabbihi kafuura mararka qaarkood raashin baa la karinayaa bariis cad baa la karinayaa markaasaa la odhanayaa bannaanka ha lagu daadiyo intaasoo keliya oo ifsaadka ah ayaa meesha ay ka baxaysaa barakadii ilaahay iyo malaa'igtu dabadeedna waxaa soo gelaya caalam aljinni washayaaiin marka waxay doonaan bay halkaa ka fushadaan gobolkeennan aynu joogno waxaa aada looga isticmaali jiray saarka weliba nooca ay yidhaahdaan saar xabashiga ayaa ugu howl badnaa oo mucaqad ah oo xataa marka la istidhaahdo qofka shareecada iyo qur-aanka ku cilaajiya waa jin caniid ah oo noocan ay yidhahdaan fiquburaalaha waxa weeyaan waa qabiil jinka ka mid ah oo diinta yahuudda haysta fiquburaalaha haddaad maqasho waa maxaanku dhaha jinka gobolladeennan ayaa ka howlgala fiquburaala la yidhaahdaa waa qabiil dhan oo jin ah oo laakiin diinta yahuudday haystaan
waxaanay ku isticmaalaan inay yani la xidhiidhaan ciddii saarka lagu tumayo wixii la mid ah qaabkaa horta bini aadmigu uu ku daandaansadaa jinka meelaha saarka laga tumayo bay tagaan markaasay halkaa ka soo raacaan qayb labaad baa jirta oo bini aadmigu ay uga gudbaan xuduudda waa qaybta la yidhaahdo taxdiir alarwaax wa muluuk uljaan taxdiir alarwaax wa muluuk uljaan waa nidaam dhan oo imika haddii aad eegtaan internetada aad baa loogu faafiyaa way ka buuxdaa waana nooc iqraa' baa ku jira oo dhallinyarada waa loo sakhirayaa inta badanna waxaa la odhanayaa haddii maxaanku idhaa aada biil weyday maxaanku idhaa sallad lagu daba qaado kugu yani kalifaya waxaan kuu haynaa guur wacan oo bilaa kharasha oo wax allaaliya wax hawlihi aanay kaa gaadhayn adaaba lagu fangaraynaya maxaan sameeyaa sidaa iyo sidaa iyo sidaasaad samaynaysaa dabadeedna waxaa kugu soo xidhmaya caalamka sidaa iyo sidaas qofkii markaa tallaabooyinkii la yidhi qaad buu qaadayaa dabeedna waxbaa u iman doonaa hal miaal baan soo qaadanaynaa oo ah taxdiir banaat iljin haweenka iyo hablaha jinka sidee loola xidhiidhi karaa ee loo soo xaadirinayaa waxay ku odhanayaan hiya jinniyatun min binti almuluuki asabca waxay leeyihiin waxaan kuu guurinaynaa inan ay dhaleen 7 boqor ee ugu waaweyna jinka mid ka mid a ayaan kuu dalbaynaa haddaba idaa aradta ixdaaraha markaad damacdo inay timaaddo oo aad itisaal iyo xidhiidh la samayso tasuumu lilaahi 12 yowman waad soomaysaa 12 maalmood 12 maalmood baad ilaahay dartii u soomaysaa ilaahay dartiidaas waa lagugu qaldayaa waayo hadhow waxaad ku afurayso iyo waxaad aqriyayso oo dhan baa shirkiyaada kelimaadka lagu fari doono ee casaa'imta la yidhaahdo ayaa shirkiyaad ah shirkiyaadkaas iyo islaamkuna meel ma wada degi karaan marka hore waxaa lagu leeyahay 12 maalmood baad soomaysaa qaarkoodna 20 maalmood bay ka dhigi qaar 40 maalmood bay ka dhigi qaar 60 maalmood bay ka dhigayaan waa nooca markaa riyaadiyaadku uu qaybsamo oo qaabkan loola xidhiidho caalam aljinka waxay u yaqaaniin nimanka sixiroolayaashii marka caalamkaa la rabo in xidhiidh lala sameeyo taqashufaadkan iyo cibaadaadkan iyo waxaan la aqriyayo riyaadiyaad bay yidhaahdaan riyaadiyaad ereygaasay isticmaalaan marka riyaadiyaadku ma aha xisaabtii ama ma aha jimicsigii aad taqaaneen riyaadiyaad haddaad maqasho waa erey ay isticmaalaan saxaradu waana qaab loola xidhiidho shayaadiinta wuxuu ku odhanayaa markaa riyaadiyaad baa lagaa rabaa riyaadiyaadkaagaasi markaa intay dherer la eg tahay baa quwadda shaydaanka kula xidhiidhayaana uu la eg yahay oo haddii shaydaanka aad doonaysa inuu aad la xidhiidhaa uu qawi noqdo waxaa laguu dirayaa riyaadiyaad qawi ah oo ilaa iyo 4 bilood qaarkood ay noqonayaan haddii aad doonayso licsaqiirna waxaa laguu dirayaa riyaadiyaad 7 maalmood 5 maalmood wax inkaasa ayaa laguu dirayaa marka wuxuu ku yidhi waxaad soomaysaa 12 maalmood waa kow waxaa lagaa rabaa buu ku yidhi inaad tagto meel mawdac khaalin baciidin can ilaswaati waalacmaar meel aan sanqadh lahayn oo uumiyaba ka dhoweyn sanku neeflo bini aadmi aanu ka dhoweyn baad aadaysaa 12 maalmood markaad afuraysana canjeero ka samaysan shaciir waa heed baa lagu ogol yahay wax oon xoolaada laguma ogola afkaa saari maysid waxaad ku darsanaysaa geedka cuudka la yidhaahdo saliid lagu shiilay ayuunbaad ku darsanaysaa intaasaa nafaqo ku noqonaysa maalin kastana inaad maydhataa lagaa rabaa maalin kastana inaad shidato waxyaalaha la shito ama ha ahaato jaawi ama wax la mida ha ahaatee inaad isa sii diyaarso maalin walba aad maydhato aad shidato jaawi baa lagaa rabaa waxaa lagaa rabaa markaa inaad salaad kastoo tukato inaad casaa'imtan aad aqrido markaad salaaddii ka baxdo
عزائم تناد أقريسا عزيمة وحال هذا وإرياء استعمالان سحر ورياش وحكستو كلمة لقول واقعيو أما شركيات هادان أما معصية بها كسر لهادان أما إغاثة الغير الله بها كسر لهادان أما أفلقادي إلهي رسول كيس الأفلقادين يا كشقال هادان وإريو كود بينو نراهنا وأفقرشو مخلوقا كل نور قارين كاغا أيا وحو لا اتصال يا عالم كاد أدقو دلبانيسو عالم كاد أدقو دلبانيسو بولا اتصال يا وحو ليهي فلان بن فلان وحو الربا إنو حردين سوقلو وحو نربا إنو محاكو هذا ديبارمنك عينكا يا عينكاس إنو الله حريدو الربا سيدي با مركا ضلب لغو كينيا عزائم با الله يراهدايو وحيالا الشركيات ويان ومركا إنو باب السحر كقالو ayaynu miisaalo dhowr ka soo qaadan doonaa waxa kale oo jira wax la yiraahdo talaasim baa lagu jamciyaa iyadoo waa wixii qoraal ku shaqale haday wax sixirku qoraal uu yahay oo in badan aad aragteen waxyaalo afar geesiya ah iyo waxyaalo wareegsan oo wax ku qorqoran yihiin waxyaalahaas oo sixir loo adeegsado ayaa waxa la yiraahdaa talaasim kalimaadka la aqriyayana waxa la yiraahdaa cazaa'im marka hadda wax talaasima maanta la isticmaali maayo waxa la isticmaalaya waa cazaa'im weeye waa erayo lagu hadlayo salaad kasto tukato cazaa'imtana aad aqriyaysa 70 marra 7 jeer ayaad erayadan aqriyaysa erayadan waxa kamida aqsamtu bilqasam as-suryaani aqsamtu بالقسم السرياني وحان كدارنا يا دار سرياني سرياني ولغة مانتا عالم كوليد سينول وانا اللغة دين النصارى اي كقرانتا هاي مركا يوناني قال لغاية مادو مركا سرياني سيريين تا استعمالي جرتي رئيس سيريا اي اللغة دو حلوان جرت سريانية وحانا مانتا لغا استعمالا إلى يوم حكنا نينوي وهالكي نبي الله يونس وكل شيء قبل كأد باللغة استعماله حلب ينا واللغة استعماله تركي جنا قريب كم إذا واللغة استعماله واللغة واللغة الله لغة السريانية الله يرهدا وأنا الله بي الله باتن حرف حروف تيدو لغة السرياني والله بي الله باتن حرف وحنا أقرنتا أبجد هوس حطي كلمة صعفس أنت أسيكو قرنتا والله بيو labaatanka xaraf ayuu suryaanigu ka kooban yahay waana luqo inta badan ay isticmaalaan dadkan qora talaasimta iyo sixirka ay isticmaalaan wuxuu leeyahay marka waxaan ku dhaartay luqada suryaani baan ku dhaartay ala malihati alqad waxaan ku dhaaranayaa midda joogeeda iyo qaab اسميدكيدي يدرركيدو وآد في عينها والمنظر ذات الحسن والجمال التي إذا أسبلت شعرها دلتها سترت ذاتها وحان كل دارنا يا قبل الصفات عليه جوجيدو وآدي آد وحيس بدنيا أرجيدو نقروح بدنيا هاي تمها ماذا حيدا هدي هوس وسيدي سنة شركيدو دن ووضع قرنكرة وإذا ابتسمت خرج من فمها haddii ay muusoto ay ilkaha kala qaadana afkeeda uu ka soo baxayo kan yaani umuud kan nuur tiir aad moodo iftiin oo tiir al kala aad moodo taasaan anigu u dhaaranaya aqbili li mahabbati wa khidmati waxaan dhaartaa kuugu maray inaad iigu timaado waan ku jeclahay inaad ii shaqaysana waan rabaa ayatuha alfaatilatu taa'ira midaadan haybada leh ee duushay markaasuu tirinaya ayna sawaaxibuki away kuwii kula socon jiray kamaymuuna wayaquuta iyo magacyaankaasuu tirinaya markuu asmaada tiriyo wada cazaa'imta laga rabo in uu aqriyo ayaa waxay oranayaan markaad 12 ka cisho salaad walba 7 jeer asmaadana aad u dhaarato ee aad dadkan dalbato oo shayaatiintan u yeerato waxaad arki doontaa yadharu laka thu'ban 'azim masbaa kugu soo bixi doona meel cidla joogta
bini aadmi kama dhowa hayjad cidlaa mas aad iyo aad u weyn baa kugu soo baxaya waa maraad xidhiidhkii ilaahay oo dhan aad ka takhallustood cidlo taagan tahay wax kuu soo gurmadaana aanay jirin thucbaankaasi tala ku weydiin maayo qoortu iskaga kaa maraya ha ka baqanin markuu thucbaankaasi qoorta iskaga kaa duubo ha argagixin casaa'imta badi casaa'imtii aad u aqri markaad casaa'imta aad u aqrido uu kaa degaya waad waayeysaa markaad weydo casaa'imtiina aad kordhisay waxaa kugu soo baxayaa jamac dumara oo aad quruxdooda yaabto ama kaagayso ayaa kugu soo baxaya oo dharkay xidhan yihiin dhammaan wada xariir yihiin gacmahana dahab iyo lu'aali ku xidhan yacni waxaanay sitaan gabadh walbaaba dabaq uu dahab ka buuxo markaasaa waxay ku odhanayaan hablaha yagan mid ka dooro falaa tujibhunna taad u socotay maaha ha ajiibin kuwaas markaad ajiibi weydo yadhabna way iska tegi doonaan casaa'imtaadii iska wado akhiiran waxaa kuu iman doonta gabadh ayaa kuu iman doonta baydaa kaamilat alqad gabadh aad u cad oo jooggeedu uu dhammaystiran yahay kaannahaa julnaar aad ubax moodo julnaarku waxa weeye ubaxa geedkan la yidhaha rumaanka ayaa julnaar la yidhaha ubax baad moodaa guduudka wahiya tatabakhtar fii mashyiha si la yaab labay isu jajabinaysaa oo isu soo maldhakhinaysaa oo ay u soo tallaabsanaysaa oo timihiina way sii daysay xagga laabteeday u soo daysay oo waxay xidhan tahay nooc ashqaraarahoo dahab ah iyo lu'aali ayay xidhan tahay rubbiga nooc kasta kii cagaarka ah iyo kii casaaba way xidhan tahay markay intaasi way kula hadli doontaa mar allaaliya markay hadashana dareenkaagoo dhan baa kici doona waa hadal aad iyo aad iyo aad maliix u ah sawd aanad weligaa maqal baad kaaga soo yeedhaya dabeedna gacantaad kula haadi doontaa way iska kaa qabanaysaa waxay ku leedahay ii meherso marka meherkana waxaa samaynaya shayaadiintooda ayaa samaynaya ballan bay kula gelaysaa laakiin markay halkaa marayso meelaad ka soo noqoto male haddaad tidhaahdo waxay ku odhanaysaa waynu isguursanaynaa laakiin bini'aadmi dumar bini'aadmiya inaad guursato ma dhici doonto anigaad ii gaar ahaanaysaa haddaad shardigaa ku gelayso waa sax haddii kalena maskii baa kuu jooga meelaad ka noqoto ma haysa adigaa cidla isdhiga magaranaysaa marka waxay leedahay waxaan isku guursanaynaa inaanad naag dambe aanad guursanayn waad ku qasbantay marka sidaasay markaa ka wada xidhiidhayaan oo uu ku guursanayaan waa dariiqo yacni daraa'iq badan bay u sameeyaan laakiin waxa weeye adigaa marka dambe adigaa geed isku xidhaya aakhirkana iyagaa ku dilaya waxaan kitaab ka aqriyey nin dhallinyaro ah wuxuu yidhi guurkii baa igu adkaaday dumarka carabtana aad bay guurka u adkeeyeen ficlan oo dee kharash qiira qaadiya baa dhallinyaradii laga qaadaya suuqaan galay meelaha kutubaa lagu iibiyo deedna waxaan soo iibsaday kutubtan taxdiir alarwaax wa muluuk uljaan wixii baan aqriyey dabadeedna wixii aan rabay baa ii yimi gabadhii waanu heshiinay waxay tidhi weligaa ha guursanin weligii adiga mooye cid kala guursan maayo sidii baa lagu heshiiyey inanku markaa shirkad buu u shaqeeyaa mudduu shirkadda u shaqaynayay gabadh baa markaa iyana shirkadda ka shaqaysa dhallinyaro ah gabadhii bay wada hadleen ballankiina uu iska ilaabay ballankii uu la galay jinniyaddana uu iska ilaabay inantii waxay ku heshiiyeen bini aadmiga ahayd inay isguursadaan berri oo kale markii meherku dhaci lahaa ee caawa uu gurigiisii ku hoyday ninkii oo midye lagu jeexjeexay guriga cidlo ahaa ninkii oo midye lagu jeexjeexay
وميدة هي اللوجو يمي محو جورسن با آخر بوتجي مركا بلن كاسي هرت كل جليان مركا وجوه الرئيسنا وحي الربان إني كوجو أودان مال عدلا مركا بنا آدم كادح ساران ومال خالي كل تجان أيا وحا كوجو إيماني مركا قاركود وحي كورانيان وحا كوجو إيمان دونا وحمدو أود بدن وقوة بدن باكو إيمانية وجيس لو شيطان نفسه أرجحين عزائم هذا إسكواضه ساسا مركا هرتكاسي وكو حرقليا أبد كيسنا مجور سنكرو بنا آدمي نوع لباد باج يعني صدحات باجرة ويكو اتصالان بنا آدميجا إيو ثقل ككلا إيو ضمر كود وحانا تاسمي غالبا وحاجرة سحر ولياش قار محام كنا دلالين كأ بين الجن والإنس سحر ولياشا برد اللالين باجرة أو إسلام دونتا بنا آدميجا جنك ينسجا نين كان سحر وليه وحو هايستا قوتردن أو شياطين بوكو أديك سدا لسحره سحر كيسا درتيد بوكو أديك سدا وحنا أود أولي هاي قبل كستو تشنية دا عندي كصود البطين وقورين كرو أما وكحري كرو أو راعين كرو مركا غالبا بلاد العرب يكرع الحمد لله ما شاء الله إنه ملهن هدينو يلان لهاينا دقنين تايدين سهر رسواني قايدين كور رمية وأمالين ما يننا ينو قبل يمحان كر هذا قبل سكلين أيو شيطان كا أيالو يريا وحنا يريا سحر عليهاش سحر عليهاسو وحسمين يا لبدي روح بو اسكو حريا إسقانا ضلبة يا قبض نكن يسوي حبة ضلبا مايا لكن شروط على كلا صحيحنا يا ساسو مركز يسوي حريا لبدي الروح صدح ذاقاب ويكو اتصالان جنك إيو إنسيجو ثقلينكو هذا يصير يبورنا يمين قسمت كادون تأثير هذا هذا يقفكو يسقو وقارع هانتيسا وإنتو عزائمتها يا طلاسمتها يا وحى يا سحر كا استعماله وبنان كا وقبحه هادو سحر رولد دلال ولا اتصاله صدح ذاق يبود هرتا ويس يعني ويكوكل مكران قيب كلا جرته وبناء آدم وفرصة سيو إن شياطين أي كلا اتصالان بناء آدم حق سيكتي ماذا تاسنا وحويه ومرك قفك مسلم كأهي أما قفك بناء آدم هي حالة الجماعة مركو سماينيو أذكارتي الرسول كبر عليه الصلاة والسلام مركو كوه سدا ما عنه استعمال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا هدي مركا أذكارتا قفك بنا آدمي وكتغو مسلم بها أهاده وحاد عده إن أو شيطان كسوف رجليو حالة الفراش كوده Somaliland dhammaantiin subaxdii iftiintaba soo gashaa siraadka iyo internetu sida suuqyada magaalada ganacsigaas u sumaya sixirada ascaarta iyo sarifka dhex yaala waxay saanta haystaan internet ilaa sugan oo marqura goyn hadduu ganacsigaagu korayo khibrada adduunyada shirar aad la gelineed waddan kale aad oo tegay kharashkaaga bixin baad internet adeegsan oo soo gashaa awood badan feebarkeedu saxan yahay ganacsigana u gaar yahay qoys lagama maarmay guriga iyo carruurta iyo madadaaladooda mar kastaba muhiim ah markay soo gasho helaan bay muxabbada mabsuudaan maankaaga geliyo internet hamoogaan gurigaaga soo gala wireless speed badan feebarkuna ku xidhan yahay la xidhiidh dadkaaga oo caalamka la jaanqaad mayfay awood badan dharaariya habeenkii hadduu isticmaalkaagu badan yahay daatadiisu xadid ma le mashquul iyo dhammaad ma leh mar qudhaata go'id ma leh haddaad gaadho suuq iyo goobaha waxbarashada halka lagu caweeyaba soobaa isgaadhsiin gurigaaga baahnayn ruutir kugu xidheenoo hawadaada keento kugu tidhi wayfaygaaga furo oo isticmaal la dabadeed hotspot speed badan soo gasho waa shirkadda koowaad ee Somaliland hogaaminaysa isgaarsiinta internetka fiber optiga ka ganacsiga iyo ka guryaha iyo dhammaanba adeegyada kala duwan ee shirkadda soo ay bixiso internet awood badan oo fiberka ah wax ku baro ku daawo ku ganacso ku iibso ku iibi kuna ciyaar isticmaal mar walba iyo